kulanti wacan oo wanaagsan. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. meel walba joogtaan isoo walba maqalkayga iyo muuqayga oo idiin soo gaaraya waa wararkiin Cabdiraxmaan Cadow oo aad ka wada socotaan YouTube channelkeena isku filan official tube. adan salaami asxaabta inagu xiran kuwa sidoo kale jecelnay inagu soo xirmaan ayagana oo qayb ka noqdo asxaabteena baan u soo wada dhaweynayaa. maanta waxa aan rabaa in aan ka hadlo muuqaal aad u muhiimsan, muuqaal aad iyo aad u taabanaya bulshada, muuqaal aan hubo adi ahaan haddii aad ila daawato in uu in badan wax ku anfacaya. gabar Soomaaliyeed ayaa muuqaalkan in badan kaga hadlaysa qodobo aad u muhiimsan iyo marxaladaha iyada ay martay iyo waxyaabaha inta badan ay kala kulantay qaybaha bulshada sida aniga iyo adiga oo kale aan ula kulanno had iyo goor hadalla kala duwan iyo walibana hadalla ka soo yeera qaybaha kamid ah bulshada aan ula kulanno ay iyadana sidoo kale ula kulantay. marka waxaan rabaa muuqaalka bilowga ilaa dabiiqada in aan isla daawano si toos ah aniga iyo adiga kadibna falanqeyn aad u gaaban ayaan ka bixin doonaa marka uu muuqaalkani gabagaboobo markaan isla socono. 3 sano ka hor waxaa dhacday in sidii dhalinyaro badan iyo dad badan ay aaminsan yihiin aan noloshayda rabay inaan guuleysto. dhalinyaro ahaa waa soo baxay fresh ahaa, laakiin maskaxdayda problemku wuxuu ahaa inaan guuleysto. problemku wuxuu ahaa wadada aan guusha u maraayay aan ku rabay inaan ku hanto aan noloshayda aan ku hormaro. sidii bulshadeena waxay degsan tahay xeerar ay leeyihiin jiro inaa guuleysato. for example camal waxa u soo maray inaa guuleysto, iskuulka ka baxay, jaamacada ka baxay, aywas waxa rabay inaa maxay shaqo helo. shaqo markaa helo waxa rabay inaa guri yeesho, guri markaa yeesho waxa rabay inaa awlaad dhalo, inaa maxay baawur haysto, inaa lacag badan leeyahay, inaa mujtamaca magac ku leeyahay, whatever wixii ma ii suurta gali waayeen. markaa jaamacada ka baxay shaqo la'aan ay ugu dhacday. Itu sahan marka waxa dhaay kaalay shaqo la'aanta maxaa waa inta fiir nag way u socon weyso noloshiisa u soconaysa. waxa dhaay soo maahan inaa wadadan wada marno. dadku waxay dhooyaan shaqo hel hay guurso wali cadaadinooya hay waa kana jidka waa saaranayo wixii aan keeno waxa ay ugu dhacday niyad meeshii waxa ka qaad is wareer waxa dhaa war wadadii waatana la wada marooy dadka noo dejiyeen waa ku soconaa waana sameeynaay wax gaarno nag inta ka bax wixii waa sameey waay. waxa gaaray at my lowest point noloshayda. ma aqaano qof kasta wuxuu dhahaa kan sameey guurso, okay jaamacad waa dhameysay iska guurso, iska sameeyso shaqo ma waxay dhan ay ku dhan waxa sameeyaa waay. and then ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa sameeyaa u dhawaada. waxa period kasta waxay ahayd ilaahay inuu u dhawaado, ilaahay tuso inaa wax badan aqriyo. waxa marka buugaagta aqrinay ogaaday inay fikradeyda bedeshay, fikradeyda ku qufulneed in guusha ay tahay, horumarka ay tahay ina wax external raadiyo. guusha waxa bursanay inay ahayn wax aan soo jiidanay inay tahay. guusha inay ahayn gudaha banaanka gudahayga ay tahay. waxa kale fikradeyda bedelmatay ina dadka wax ka suguno ani wax soo saaro. marka intaas dhan ogaaday waxa ii bilaamay wado cusub ay bilaamay qof wax aqriyaa noqday, qof waxa noqday oo meel ka soo baxo. dibki intaas ma ku harin marka aniga ka baxay aniga wax ka suubsaday shaqadii aniga sameystay noloshayda gal waxa arkay dhalinyaro badan jidkayga marayso ayakii sidii loo cadaadinayo. shaqo waa inay heshiin, wax waa inay gaartiin, dhibaatada haysato qaar ii dhow tahriibayaan, qaar ii dhow depression hayo, qaar ii dhow maxay ahayd inay isdilaan, maxay ku fakarayaan problemkii shalay ani haystay wada haysto ayakii dhan inay wax noqdaan rabaan aqoonin wadada wax ku noqon laayeen. meesha ani taagna ay taagan yihiin markaas waxa dhakaalay it's not over ma dhamaanin waxaan ilaa maxay ahayd qof kasta dhalinyaro kasta oo maxay ahayd guul rabto ee ogaatay inay guusha ahaan waxaan qaldan oo nolol sameeyay. ma ahan inaa caan noqono, ma ahan inaa magac yeelano, ma ahan shaqadeena guusha is anaka inaa wax noqon gudeena. markaas waxa igu dhalatay buugaan inaa qoro, buugaan aan soo saaro. buugaanna wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood. marka kamera dhal noloshaada u sameeyay waxa ku saleeyay anoo og buugaagta hadda jiro waxay u kala baxaan buugaag dhiirigelina, buugaag caafimaad ah, buugaag maxay ahayd oo self development ah. buugaan wuxuu isku kaashanayaa caafimaadkii, developmentkii iyo guushii qofka uu ku hanan lahaa asoo caafimaadkiisa internally isdar yeelayo. kamera dhal noloshaada 2 qayb marka u kala baxaa. kamera dhalin shakhsiyeed iyo kamera dhalin shaqeed.
waxaa hormaraya markasta ka miro dhalin shakhsiyeed itis shakhsiyadaada mid wax ku geenayso wuxuu ku hormarinayaa jabtaradaas ugu horeeyo inaa maskax adag dhisatid maxaa ku noolnahay bee'a adag bee'a oo u samaysneen dhalinyaradeena wadankii dagaala ka socdo dhibaa ka socdo dhibkaas dagaalkaas caqabadaas waxaas wax naga soo riixi karo waxaa waa inaa mentalitygeena iyo mindsetkeena ka shaqeyno inaa maskaxdeena u abuurno brogaraamkii lagu shubo yaraanteena ka bixino kusoo shubno brogaramin cusub buug wuxuu ku barayaa maskax fresh sa u noqon lahaydeen oo buuganin bara fresh mentality noloshaada u samaysan lahaydeen midda kale oo qaybta labaad waxaa waa kamir dhalin shakhsiyeed okay mentalitygaada waa ka shaqeysay waa ogaatay wixii muhiim ku ah shakhsiyadaada imaanay marka shakhsiyada marka imaado ma ahan marka inaad dadka wada raacdid shaqadii shakhsiyadii waa fahamnay shaqadii qof kasta wuxuu rabaa inuu dadka waxay qabanayaan qabto shakhsiyadii wuxuu buugan ku barayaa in maxay ahayd shaqadii adhee in adiga talentigaada awoodaada hibada ilaahay ku siiyo baratid haddaa aqoonina asaa ku baraayo asaa ku maxay ahayd ku tusaay hibooyin aad samaysan kartid hadda aad baran kartid gacanta aad ka qaban kartid oo qofkaas waxaasaa loo dhaafay oo loogu tagi karo intaas marka buugga hadda ugu baxo waxaa rabaa hal fariin oo yar inaan ku darsado waxaa waa fariinteeda asxaabay dhalinyaro haddaa tihiin wax aqriya aqriska anuu isoo badbaadiyay haddana waa ku jiraa wallaahi aqriska waa magic aqriya ya midda labaad waxaa waaye noloshiina ka miro dhaliya hadda ma ahan wax oo waa yartihiin oo 15 jir meesha hadduu fadhiyo 50 jir 40 jir 70 wax oo nolosha noo soconayo waa noloshaada hadda noolow lesbaron waa motivation oo macalin oo aad ii motive garay wuxuu soo qaadanaa scenario yar scenarios waxaa rabaa inaan la wadaago waxaa imagine gareysiin qof kasta oo naga mid ah inuu sariirtiisa dhimashada uu jiifo oo maantay sakaraatu moodkii u taagan tahay sakaraatu moodkii ku taagan sariirtaada jiifta marka nafti kaasii baxay ku jirtid dileema yara la galaa dileemadii waxa ku hor imaaday ashbaaxdire aqraad badan geesaha imaadeen subhanallah inta la iga imaaday ya inta la iga imaaday indhaha kala furtire aqraadka waxa waay riyooyinkii hamigaadii skillski maxay ahayd awoodihii waxyaalaha inta nooleed ku fikri jirtay buugaagti sheekooyinkii la rabay inaa adduunka inta joogtay dadku u soo saartid ka jiifatay ayakoo ku xanaaqsan oo ray aqraad ay soo ku fiiraan ay ku dhaayaan adduunkii waxa waaye ilaahay aduuna ka sii adiga hebel qof kasta aduu ilaahayna ka sii maantana adiga kula dhimanayna gudka kula galayna marka su'aasha waxa waaye marka dhimanaysiin aan hadda dhimanaysiin bo meeqo maxay ahayd sheeko meeqa buug kula dhiman karta da wax ka qaban imagine ma santiin muuqaalka halka ayuu ku gabagaboobay xigmad aad u weyn iyo xambaarsan yahay waxyaabaha inta badan ka dhaxdhaca gudaha bulshada waad akhrisatay ilaa jaamacad waad soo gabagabaysay shahaado waad soo qaadatay kadibna markaad gudaha bulshada ku soo noqoto shakhsi walba wuxuu ku dhahayaa aawada shaqadii shaqadaad soomaad akhristeen shaqadaad haysa aaway marka arrimaha noocaasi oo kale qalbigaaga inay bedelan maaha gabirani haddii aad si wacan u daawanaysay muuqaalka ilaa 7 daqiiqo soconayay waan filayaa in badan in wax badan uu dhaqdhaqaaqaada ka bedeli doono haddii mugdiga ayada la mariyay oo kala soo martay marka arrimaha aad u farabadan ay ka hadashay dhiirigelinta inta badan aad bay u wanaagsan tahay sidoo kale weligaa waxa wanaagsan inaadan dhageysanin dadka adiga ku niyadjibiya soo markayn waxay rabtay inay shaqo hesho guursato mustaqbal yeelato laakiin wixii waa iskeeni waayeen marka maxay danta ku qasabtay in ay dhaqaaq samayso si hadafkaasi u gaarto marka adiga sidoo kale kamid ah bulshada aniga iyo adiga dhammaan wada gaari karnaa hadafyada aanu leenahay waa haddii laakiin aan dadaalno dadaal ayaan uga baahan yahay ma aha in caan noqono ma aha in meel walba nagala yaqaana taasi ma aha muhiimada waxa weeye maxaa nolosheena ku soo kordhinay heer ilaa intee aanu gaarnay yaana garab qabanay in badan magac nooceen ka dhaxleenahay gudaha bulshada sidoo kalena aqoonta aanu leenahay anaga ahaan maxaan ku qaban karnaa qodobada ayaa aad u wanaagsan in aanu dhammaanteen ka wada fikirno kolay muuqaalkani waan filayaa in adiga ahaan uu
wax kaa bedeli doono waa haddii qodobo fara badan ay ka dhawaajisay mugdi ay kaga jireen buug ay qortay gabadhaas sidoo kale oo weliba inta badan maskaxiyan dadka inta badan waxa ay tiri akhrista wax ka bedeli doono oo welibana inta badan waxa ay ku boorisay in akhriska aad loogu dadaalo aad buu muhiim u yahay in badan culayska la saara adi ahaan inaad wax ka faa'iido waayo haddii aad akhrisato kulley adiga ayay faa'iido ku tahay shakhsi ahaantaada inta badan waana qodob inta badan aad iyo aad u muhiimsan marka muuqaalka ayaan jeclaystay in aan kula wadaago aniga waxyaabaha lagu qoslo waxyaabaha xikmadda sita waxyaabaha had iyo goor dhacaya ayaan jeclaystaa in aan la wadaago asxaabtayda aad baan idin salaamaya haddii muuqaalka inuu kusoo gaaro fadlan like saar haddii aadan nagu xirnayn soo dhawow haddii muuqaalka in badan aad ku xiran tahay adi ahaan oo asxaabteenna ka mid tahayna la wadaag asxaabta kale si faan u helno saaxiiba sida adiga oo kale wanaagsan aad baana idin salaamiyaa